عبوان وقسلامي عبد القادر wuxuu ka hadlayay muxuu ahaa roondada ka jirta Jigjiga Jigjiga roonda kama jirto waqti hore u dambeysay ciidan booliis ah oo xaafadaha dhex wareega ma jirto muddo hore u dambeysay Cabdiqaadir laftiisa ayaan information haynin marka waanan kugu raacsanahay mid waa runta in muxuu ahaa ruuxii social media ka hadla ama dawladda dhaliila in loo daadanayo oo la soo xirayo laakiin maxaa loo qaban waayay dadka laynaya qowracaya waa su'aal loo baahan yahay laga calaamad su'aal baa saaran halkaas dhibaatada ugu weyn Jigjiga ka jirta runtii waa qowmiyadihii Itoobiya oo dhan baa isugu yimid magaalo hadday ballaarato oo dadku ku batana dambigeedu uu badanaya taasi waxaa loo baahnaa marka in ay dawladduna ay la jaan qaado isbeddelka magaalada ku yimid oo ciidan dheeraada oo booliis la qoro oo muxuu ahaa roondadii xaafadaha dib loo soo celiyay ma jirto roondo laakiin waa Cabdiqaadir waa runtiis qabalayaal baa jira waalubana waxaa la ii sheegay qabalayaasha in muxuu ahaa waa meesha lagu rabood gareeyo dambiyada qaarkood iska xidhan yihiinba calankiibaa iska taagan way xidhan yihiin baa laygu yidhi aniga waa information hayo weeyaan marka su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan abwan dilkan hadda foosha xun ee ka dhacay magaalada Jigjiga ma ahan kii ugu horeeyay ma aha kii muxuu ugu dambeyn doonaan ma noqon doono oo dambiye kala dhacdo arrinta see looga hortagi karaa oo muxuu ahaa dilalkan looga hortagi karaa maxay salka ku hayaan bay kula tahay ma qowmiyadaha kale soo galayba ma Soomaalida dhexdeeda islaynaysa miya ma booliiska ayaan shaqadiisa qabsanaynin oo nin walba wuxuu rabo sameynaya walibana waxaa midaas ka sii daranba tuugadii oo habeenkii 5 nin baa ku soo dhacays oo darbiga ka soo boodaan bangaday wataan xataa faasas bay wataan ma garatay marka arrintan dambiyadan ku soo kordhay maxay salka ku hayaan bay kula tahay adiga engineer waad mahadsan tahay waxa weeyaan waxaad dawladdana aad wax ugu sheegayso dadka shacabkana aad ku baraarujinaysa arrinta inay helaan dawladdana aad wax ugu sheegayso Cabdiqaadir waxaan u malaynayaa uu yar hor istaagayo arrintii aan doonayay meesha iga muuqatay in xogogaalka uu ahaa waxa weeyaan aan warkeeda hayay maadaama meesha ka maqnaay haddana waa ku dhex jiray oo dadkii hadii ehelkii baa meeshii wada yaala صح oo meel aan ka maqnahay ma okay waxyaala kolka aan xogogaal u ahayo meeshan ka jira haddii waxa weeyaan aad weydiisay arrintaas sidee looga hortagi karaa engineer Axmedow dadkan engineer Axmedow canshuur bay bixiyaan dalkan kadaata waxa weeyaan hantigiisi waxa weeyaan nimanba mar walba maxaan ku dhaday xabad lama soo gelin karo maxaan ku dhaday diracaha oo maxaan ku dhaday gabadhi ay xidhanto oo maxaan ku dhaday ka yimaada wada uga soo gala meelihii wax waa kontrabaan la dirciga kontrabaan la dhih maalin dhaweyd waxaa la ii sheegayay gabadh wax yaroo show alaaba wadatay oo hadda waxa de la taabtaba aan afkayga hataa kama sheegi karo qabinta laga siiyay baa laga qaatay marka waxay deynayaan marka waa haye weliba waxaad nasiib ku leedahay haddana xabad lagugu daray madax lagaa tuugo la odhan karaa marka waxaan leenahay waxaa dadka kolka lagu badbaadin karaa haddii aad arrintaa wax iga weydiisay صح waxaa dadka lagu badbaadin karaa dadka shacabkani waxay bixiyaan canshuur bay bixiyaan waa wadaniin ciidan tadaata u dhashay waa dadkii magaaladan tadaata dhistay ee camiray ee guryaha dhagaxa ka dhistay ee maxaan ku dhahday ee qurxiyay weeye waa dadkii ganacsiyada ka furtay ee waxa weeyaan dawladnimadka kadaata waa shacab meel isugu yimid iyo dhismo ka dhacay iyo waxa weeyaan haafkii oo la wada qaabilay uune dadka waxa weeyaan wax badbaadiyo oo hantiga laga qaadaya canshuurta in waxa weeyaan lagu badbaadiyay xaq u leeyihiin dadka shacabkii صح okay sidee loo badbaadin karaa baataala kolka waxaa loo badbaadin karaa Jigjiga magaalo caasimada hay noqotay dulduleelku meeshuu wax ka jirana in aanu dawladda wax ka tusnaanu doonaynaa doonayna waxa weeyaan maxaan ku dhahday inaanu waxaan sicib u dhacay mari
صح dhacdadu waa dhacaysa cabdiqaadir hadda wuxuu ii sheegay inay lana ka dhacday gabadh habeenka weyda ku dilay dhacdada ma diidanin tan kolka waa dhacda la oran karaa mise waa gumaad baa la oran karaa horta dembiyadu way ka dhacaan magaalada hadday balaarto dembigeeduna badanaya laakiin waxa loo baahan yahay in dembigii laga hortago isla markaasina dadkii dembiga geystay lasoo qabtay ilaa hadda ma hayno gabadhii yarayd ee 10 jirka ahayd u kaadi gabadhii 10 jirka ahayd ilaa hadda ma hayno dad la keenay maxkamad oo la xukumay wiil yaroo garba lagu dilo 9 jir ah oo nin dhabuuba uu dilay ma artay ma hayno xukumidiisii iyo in la toogtay ahayd ma fahmaysaa war caalamka hormaray iyo adduunyadu si ay isu ilaalisaan wax uga sheegaynaa inaanu waxa weeyaan wax xumeeya leenahay ma aha in aanu waxa weeyaan dilka diidanahayna ma aha wiilkani uma dambaynayo ugumana horreyn soo dhacda meeshan tadaata ka soo dhacday marka balse ay hadii ay wax qaadanayaan ay wax nooga faa'iidaan war xaafadahan kadaata hal xoojiyo hadii ay ama askar tahay meeshan iminka boontigan hadda ka hadlay cabdiqaadir waxa weeyaan engineer Ahmedow waxa jirta hadda halka aan fadhiyo anigu hadii aan booliska waco xarunta kuma dhacay gaariga dariiqa ku socda ee waxa weeyaan iigu xiga ayo markaa ku dhacaya hada walba ninkii booliska iigu xiga haduu doono gobolkan ay ka yimaadayo telefoonka uu qabsanaya marka adreska isibu ku oranaya haduu adreska xataa si wada automatic buu arkay صح meesha aad joogtid buu automatic ku jir buu ku oranaya ما horta abwan ma simi karno muxuu ahaa deegaanka Soomaalida oo wadan Itoobiya oo maartay faqri ah ka tirsan oo budgetka la siiyo waxay u kaaday budgetka la siiyo aad u yar yahay iyo wadanka Jarmalka oo hormaray oo muxuu ahaa dhaqdhaqaaqa ruux kasta halka laga daawanayo lana socdona muxuu ahaa ma simi karno laakiin waxa weeyaan waxa loo baahnaa muxuu ahaa in muxuu ahaa wax u eg maya in roondada la badiyo booliisku ay muxuu ahaa dadka ay istaajiyaan xaafadaha baaritaan la sameeyo muxuu ahaa ayaa loo baahan laakiin ma dhihi karno telefoon haddaan waco 2 daqiiqo igu imaanaya nin booliis ordayo oo baabuur wata qaar baa baabuur haysan oo lugaynayaba way jirtaa arrintaasi ma simi karno laakiin wixii talay tusaalaha in la siiyo loo baahan yahay oo maartay ay sida wax laga bedelo sida waxa weeyaan duruufta meesha taale ee Afrika taala ee wadanka kalaatiya dalkan kalaata ku xeeran ma diidanin laakiin waxaanu doonaynaa waxa weeyaan in wax la soo reebo oo meesha inuu wax ka jiro in la dareemo shakhsi la diray in dad loo qabtaanu doonaynaa waxa weeyaan meesha wixii ka jiray awal horeba waxaan sidaan uma dhici jirin shakhsi la diray inaanu aragno shakhsigii dilay meesha kulkay dawladda ka jirto bal hadii ay waxa weeyaan boqolkiiba ay waxa weeyaan ay 80 baxsato in 10 la qabtaa la doonaya waxa xaqiiqa صح I agree with you صح qof waxa dilay oo nalaleeyahay waxa weeyaan qofkii dilaaga ahaa waka oo dambiilihii wuxuu u xiran yahay maxaan ku raayay hebel oo waxa weeyaan uu dilay u xiran yahay maxkamadaas la geenaya ma aragno maalin walba waxa la leeyahay waxaan ku raayay qof baa meeshan tadaata lagu us xabaalay wixii dilayna lama yaqaan marka shacabkan kulka yaa canshuurta siiyaa Ahmed shacabkan waxaan ku raayay wadanka jooga maalin walba albaabada lagu soo garaacayo shacabkan yaa siiyaa canshuurta ee dukaamada laga xidhanaya sharootada la saaraya hadii aan canshuurta bixinin shacabkan yaa waxaan ku raayay dawladdu waa su'aal fiican muxuu ahaa waayo dadkan canshuur bay bixinayaan ganacsigii baa maartay ay ka bixinayaan waxayna ahayd canshuurtaasi in dib loogu celiyo dadka oo booliiska magaalada la badiyaa la rabay oo ammaan u dareemo waa runta magaalada Jigjiga 10 habeenimo meelaha qaarkood ma mari kartid mana inta telefoon baad sheegtay naftaada hadda la baxda nasiib leedahay hareeraha laga marayaa walibana waa lagu garaacay meel walba kaameerada wax walba adaa dhiibay magar meel walba gawaaridu ha wareegaan oo sida Jarmalka oo kala noqda malihin waxaanu leenahay ayu xaafad ha laga helo xafiis habeenkii furan oo waxa weeyaan telefoonkiisa la garaaci karo oo dadka shacabka ah la siiyo iyo roondada oo la beeriyo inta dadka shacabka ha helaano inay dawlad leeyihiin oo waxa weeyaan ay habeen un ku seexan karaan dadku waxay taagan yihiin qofku hadii uunan maxaan ku raayay musqul lahayn meelaha yar magaalada koonaheeda xiran yahay inuu guriga dhaxdiisa ku xaaru taagan yahay naftarta subhanallah hay cabsi daradeed
cabsi daraadeed injineer waa wax jirta weeye waa xaqiiq weeye arrintani dadku inay bacda ku xaaraamay tagayeen sida xamashadii waagii ay oran tiirinaysay bacda ku xaari jirto marka ma jiraan qofku wuxuu isku aamina ma jiraan qofku waxa weeyaan maxaan ku idhahday isaga unbaa lafihiisa u cabsado haddii aad iyagan wax ka sheegto arrimaha lagu xidhaa un buulahay waxa weeyaan dowladdu ku hoos gabado iyagan unbaa laga baqayaa dowladdu ku hoos gabado dadkan shacabka ima haystaan haddii aad banaanka lagugu feedhayaa lagu leeyahay inta la qabto qofkan kaata lama odhanayo maxaad ku dilaysaa ku dhaafayaan baa lagu leeyahay ciidamada booliskii nuurow su'aal baan ku weydiinaya cabdiqaadir soo noqday waxaan kaa rabaa nuurow su'aal baan ku weydiinayaa dadkii wiilkan dhalay ee ehelka ahaa tuun intee la-eg ayay qabaan oo ku tuhumayaan farta ku fiiqayaan ay leeyihiin qolada iyo qoladaas waxaas aqbaarta iyada kolley waxaan u malinayaa hadda baaritaan baa socda inaan wax dhawaan dib loogu soo way jiraan tuhunku waa jiraan laakiin bal waxaan sugaynaa cadaymaheeda ku daba jira waxyaalaha la barbar dhigaya laakiin meesha ay ugu dhowdahay waan idila soo socodsiin doonaa insha allahu tacaala inagoon ka hortaxaynin wax bisil baan doonaynaa inaan dadka u sheegna inaan dad wax saarnana ma doonayno inaan dad shacabaha isku dhufanana ma doonayno inaan dowladda oo waxa weeye wixii aan lagu xaqiijinaynin aan nidhaahno iyadaa dishayna ma doonayno ilaa hadda waxa xaqiiqa ma hayno could be anyone ruux kastoo noqon karaa waxay noqon karaan tuugo soo dhacday oo muxuu ahaa saa ku dishay waxay noqon karaan dad kaleeto oo aan maartay we don't know marka waan sugaynaa wixii warbixin kasoo laakiin waxaan maartay rabnaa in uu cadaalad helo marxuumkaas oo dadkii dilay meel kasta laga raadiyo hadda waxay wararku sheegayaan meelaha qaarkood markay maartay dembi galaan kuwan xabashada iyo oromada iyo maalinka dambe waxay raacaan baa bas way ka baxaan oo deegaankoodii bay aadaan marka in meelaha kontaroolada la dhigo muxuu ahaa askar ruux kastoo baxayana la baaro waayo hadda waxaa suuragala in muxuu ninka la dilay dadkii dilayna ay baxeenba ama ay baxayaanba marka kontaroolada in alerti la siiyo oo la yidhaahdo qabta ruux walbana su-aalo weydiiya waa waxa loo baahan yahay si loo qabto dadkii ninkan dilay waayo kulbiyana ruux kastoo noqon karaa mana ogin laakiin hal baan kuu sheegay axmedow ninkan dadki dilay lama dhihi karo waa tuugo ma dilin ninkan ninkani waxaa lagu dilay on purpose ku talagal baa loo dilay ma aha tuugo qof saanoo kale wax uma disho waa suuragal waa on purpose marka waa target waa nin lasoo target garaystay could be in guriga la doonaya could be in dad wax isku dhaceen could be in macnaha muxuu ahaaye dadka muxuu ahaaye isaga iyo dad kale wax isku hayeen hadda kahor marka ma aha ninkan tuugo ma dilin ninkan waxay ahayd arrin ku talagal ah ayaa lagu dilay waxaa caddaynaya midaasi arxan darrada loo dilay iyo ninkan banaanka loola soo baxay gurigii baa laga soo saaray banaanka waayo tuugu isaga ugu fulaysan adduunyada haddii lagu soo tooso waa cararaya ilaa iyo banaankii baa lagu dilay oo dhiiggiisi baa derbiga maartay marka waa dil qorshaysan buu ahaa oo loogu talagalay buu ahaa dil qorshaysan dilku weeyaan iyadu ma aha tuugo iyo burcad iyo waxaas noocaasa maaha waa dil qorshaysan ku ahaa dilku dadkii kolley jina group tahay waxaa isaga waa dhaafsan tahay arrinta waa ka weyn tahay marka waxaan anagu leenahay cadaaladda ha helo marxuumkaas maaragtay waanan u tacsiyadaynaynaa ehelkii qaraabada oo maaragtay ka baxay waana dil aad iyo aad maaragtay argagax u leh oo naxdin leh samri imaan allah ka siiyo dhammaanna sabana siiyo dowladdana waxaa looga fadhiyaa inay maaragtay mas-uuliyaddeeda qaato booliskana mas-uuliyaddooda qaataan oo muxuu aha lasoo qabto gacan kudhigliyaashii arxaan laawayaashii ninkan dilay marxuumkan aad ba masan tahay abwan teleefon kalaan qabanaynaa waxaan u gudbi doonaa haddanana okay marka soo waca barnaamijka soo waca fikirkii ka dhiibtaa waxaan ka codsanaynaa oo kaleeto muxuu ahaa inaydan qofna eedaynin idinkoon haynin wax caddayna halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوري magacaaga meesha naga soo wacayso walaal. والله waa عبد الرحمن مع العرب ويه. أها. waxaan joogaa Mareykanka. Ma ku jirtaan baash?
soo dhawow waxaan ka hadlaynay dil ka dhacay jigjiga maxaad akhbaar haysaa fikir ka dhiibo welcome waad maasan tahay anigu waxaan ahay ehelada ninka la dilay baan ahay ma garan haye kulley maraykan baan joogaa habeen horaa la ii soo hadlay markii dilku dhacay haye marka ilaah naxariisto allah naxariisto adeerkay baa dhalay adeerkaa dhalay laxmiya haye adeerka laxmiyaa dhalay marka insha allahu kulley dad baa la xidhxidhay weli wax xog oo buuxda ma hayno guriga daaqada looga soo galay wiilka lagu soo jebiyey isagoo jiifa haye nin cartamay oo in badan maaragtay dee dad badan iskugu tageen buu u ekaa meesha lagu dilay hor dhicmayno xogaha haye laakiin meydkiina insha allahu berri baa la aasi doonaa intaan hadda xog hayo marka adigu de laakiin dil foolxun oo maad aragtay marka waxay u muuqataa target inuu ahaa oo dil qorshaysan oo koox ay u soo dhaceen waayo waxay u muuqataa guriga keligii baa jiifay walaalkii baa iska lahaa oo damacsanaa inuu ku guuro magaratay gurigana baryahan oo dhan waxaa ku socday renovation baa ku socday waa la hagaajinaya guriga hagaajinaya buu ahaa oo guryahan maaragtay la hagaajinayo inuu ku guuro rabay walaalkii baa markaa deganaa walaalkiina hadda waa xidhan yahayba marka ninkii guriga degi rabayna xitaa waa xidhan yahay oo si shalay loo qabtay waa xidhan yahay oo sabab maxaa loo xiray oo isaga maxaa loo xiray sababta loo xiray walaalkii والله ودي أنا حاول نمكن ولا لذي وياه سوتي الكبان هاي فامل كبان هاي والله حديدة عندهم بنتظن والله حديدة ساك تعود تجان معكوش يعني شو تجان ولا شو تاني يا بالي بسيط لكن وفرس سبيشن ومعنا دولة يبارتان كذبي وحنا ما من نبغى ولالك يدلي وقول يسوي لهني هاي أوكي مركا هاي كانوا واحد خبتين مركا shay waa la soo daynayaa laakiin wiilkaasina qaabkaas uu dhintay boosha xun ee la garan waayey maad aragtay sidaa wararka qaar baa waxay leeyihiin waxaynu kaadi maadaama adigu aad familkii tahay ood la xidhiidhay warar baa waxay noo sheegayaan keliyihii baa lagala baxay ilna waxaa laga geliyey muxuu ahaa toori arrintaa miyay jirtaa nabaro badan baa ku yaalla wiilka waan hayaa maaragtay xogtaas waan hayaa nabaro badan baa ku yaalla wax hadda wax maqan oo maad aragtay uun dilkiisa mooyaane wax maqan oo xubin lagala baxay ma jirto ma jirto waayo de aniga walaalkay iyo isaga walaaladii iyo reerkayga qoyskayga oo dhan baa meesha jooga kuwa dhagaxbuur ka yimid kuwa dhuxun ka yimid kuwa maad aragtay sii jooga intuba way joogaan marka berita la aasayaaba tiro la soo daynaya meydka إن شاء الله بالعاصي ميت قطع حتى أنا اللي بريء العاصي هدي لا يراد dadna waxay leeyihiin dadkii muxuu ahaa qaraabadiisa waxay diideen in la aaso ilaa laga keenayo muxuu ahaa ama laga soo qabanayo dadkii dilay arrintaa maxaa ka jira iyada waxba kama jiro waa qaraabadiisa aniga baan ku yiri aniguna maaragtay ka mid baan ahaan ka maqnaada laakiin qaraabadiisa aniga waa gartay dadku waan wada hadalay marka insha Allah bari wala aasi doona hadii la yiraahdo Allah naxariisto Cabdiqaadir Breaking news. You are watching Tilman TV.